Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada Chorus Jane Full Stage marka Chorus waxaan ku qaadan doonaa insha Allah main stage main stage wax kale maahan waa yani MongoDB iyo React iyo Express.js iyo Node.js marka afartaas waxaan ku dhisaynaa full stack web applications marka full stack waxa uu horumari doonaa application oo marka noo noqon doona to-do list wuxuu yeelan doonaa sign up iyo sign in marka validation fiican leh marka waxaan arki doonaa labadooda sign up iyo sign in sida loo sameeyo sidoo kale waxaad samayn doonaa tawjiidan modelkan marka all of these insha Allah waan samayn doonaa sidoo kale waxaan samayn doonaa e-commerce website marka wuxuu noqon doonaa mid fully functional ah oo aad iyo aad u shaqeynaya sidoo kale wuxuu yeelan doonaa login iyo log out marka userkan oo aan markaas login ama log out aan kusoo dhehelo waxaa markaa la jeedin doonaa qaybta marka backend sidoo kale wuxuu yeelan doonaa muxuu ahaye admin panel kaasoo aan kasoo gelin doono products sidoo kale productyada dhan aan ka delete karno product marka aan u baahannahay inaan delino markaas e-commerce website-keena marka kusoo dhawaada Chorus Jane main stage dabcan gudaha usii galaynaa project walba markaan dhisayna intaan dhisin ka hor ayaa markaa falanqeynaynaa don't worry marka insha Allah kusoo dhawaada marka Chorus Jane haddii aadan soo qaadan koorsooyinkii hore uu ku adkaa jaraa gaar ahaan Chorus React-ga iyo Chorus HTML iyo CSS iyo JavaScript iyo MongoDB iyo Node.js marka intaas Chorus marka waa koorsooyinka laga rabo qofka inuu soo qaato marka HTML CSS iyo JavaScript oo basic ah qofka la rabo inay qasab ay tahay sidoo kale inuu yaqaano iyo sidoo kale React-ga oo ay tahay qofka inuu yaqaano gaar ahaan Chorus Jane e-commerce iyo saujidan front end waxaan kusoo dhisnay React Chorus marka hadda waxaan dhisi doonaa qaybta adminka iyo sidoo kale backend si markaasi products u imaadaan qaybta marka backend sidoo kale to-do-list application from scratch kasoo bilaabana from zero marka designka marka application to-do-list application wuxuu noqon doonaa Tailwind CSS sidoo kale marka Chorus Tailwind CSS-ka inaad taqaanid marka very important waa iyadana insha Allah waxaan ku rajeynayaa inaad Chorus ku raaxaysan doontid oo markaas si fiican u practice gareyn doontid dabcan Chorus Jane waxaa idin ballan qaadaya inuu noqon doono very open Chorus yani Chorus open ah oo micnaheedu tahay Chorus si waadix ah wixii loo sharxi doonaa okay haddii wax qaldamaan si toos ah loo sixi doonaa adinku markaa shaashada u jeeda sidoo kale everything else wixii oo markaas error imaada inta markaas project aanu dhisayno waynu sixi doonaa sidoo kale markaas sixino sida uu sixino iyo qaabka loo saxayo waa baran doontaa marka Chorus gudihiisa ma ka walwali doontid yani project ama uu kaa xumaada project ama sameeyaysa sidoo kale marka waxaa helaysaa code oo dhameystiran 100% marka waxaa ka helaysaa marka qaybta materialska aad PDF kaas aad markaasi download dhihi doontaa PDF kaas marka download aad dhahid marka linkiyada dhamaantooda marka qoraal aad kusoo qoray link walba marka qoraalka aad kusoo qoray bisa raacaysa kadibna Google Drive ku geyn doonaa marka download aad dhihi doonta marka I hope waxaan jeclahay inaad Google Drive aad fahansan tahay oo marka isticmaal doonto insha Allah marka halkaas ku soo doonaa international Chorus Jane. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.